kulan wacan wanaagsan daawadayaal markaana waxaan idinku soo dhaweynayaa sheeko cajiib ahay oo markaasi caalamka aad looga hadalhayo. warbixintan waxaa la yiraahdaa oo runtii ay ku muteysan tahay ama markaasi maxkamad lagu soo taagay haweeneyda markaasi qortay ee buugga la yiraahdo sida loo dilo saygaaga ama ninkaaga. haddaba haweeneydani oo buuggaasi qortay ayaa waxaa la ogaaday baaris dheer kadib in iyadu ay ahayd qofka dambe ee ninkeeda oo la waayay 4 sano ka hor iminka la tilmaamay inay iyadu dishay. haweeneydani ayaa waxaa markaasi ay hadda ka hor ay qortay maqaal aan idin sheego markaasi ciwaan uga dhigtay sidee ninkaaga u dili kartaa. ayaa sanado badan kadib ninkeedii la dilay cidishaana waa la garan waayey. baaritaano dheer kadib waxa ay boolisku markaasi iyo maxkamadda ay ku caddeeyeen in iyadu ay dishay ninkeedii oo maqaalkii ay qortay ay ficil ay u bedeshay. ugu dambeyntii xabsi daayin ayaa lagu xukumay haweeneydani oo 71 sano jir ahay. qoraaga sida loo dilo saygaaga ayaa lagu xukumay xabsi daayin ahay maalintii Isniintii markaasi soo dhaaftay. Nancy Crampton Provi oo 71 jir ayaa lagu helay dambi dil ahay darajada labaad ee May 25 bishii ee markaasi tagtay ee soo dhaaftay. kadib markii ay si xun u joogatay baa la yiri Dan Provi oo 63 jir ah isaga oo ku sugan goobtiisa shaqo ee Portland 4 sano ka hor. qoraaga jacaylka Nancy oo lagu eedeeyay in markaasi ay dishay ninkeeda Dan Provi waxa ay daawanaysaa oo sawirada qaarkood ay idin muuqdo markaasi ay tahay dacwadaha maxkamadda ku taal Portland. qoraaga sheeko yaqaanka ah ee isdaabacay mar qortay qoraal online ah oo lagu magac daray sida loo dilo ninkaaga ayaa Isniintii xukunkan markaasi lagu helay waxaana markaasi maxkamaddu ay ku xukuntay xabsi daayin ah iyadoo ay suurtagal tahay baa la yiri in lagu sii deyn karo cafis marka la ogaado baaris dheer oo kiiskan ku saabsan. Nancy waxa ay daad markaasi ay jirtaa 71 sano waxaana markaasi xukunkeeda uu noqonaya darajada labaad ee maxkamad ayaa la saaray 7 ka hor. xukunkeeda waxaa markaasi suurtagalnimada ka dhigaya in markaasi aan la sii deyn karin sida lagu soo waramay oo ay qortay NBC ee xiriirka leh markaasi dacwadda arrinkan la xiriira. dacwad oogayaasha ayaa sheegaya in haweeneydani ay si ba'an ay u joogatay ninkeeda oo 63 sano jir ah gudaha macadka cunnada ee Oregon ee hadda markaasi xiran halkaasi oo uu ka shaqeynayay sanadii 2018 sababtoo ah waxay u istaagtay baalayeen dhaqaale markaasi ay ka hesho bixinta caymiska. kiisku waxa uu soo jiitay dareenka qaranka ee sababta qormada uu Crampton markaasi ay qortay waxa ay ku dugan tahay markaasi ay sameysay sanado ka hor. xeerlaalinta ayaa u sheegtay xeer beegtida in laamaha ay soo wajahday dhibaatooyin dhaqaale markii uu dilka u dhacayay ama gabadhaasi ay la timid markaasi dhibaatooyin xagga dhaqaalaha waxaana ay ku dooday inay baaritaan ku sameysay oo ay ka soo iibsatay xirmo qoryaha ruuxaanta la yiraahdo ee internetka ay ka dalbatay oo nooca markaasi shirkadda Glock 17 qorgacmeedka goobta bandhiga ayaa la yiraahdaa. qareenka Crampton ayaa ku doodaya in cadeynta gobolku ay tahay xaalad ku murmay sheegashada dhibaatada dhaqaale wuxuuna keenay marqaatiye ka marakacaya xiriirka xoogan iyo jacaylka lamaanahan. haweeneydani ayaa sidoo kale u istaagtay markaasi inay sheegto in iyada iyo ninkeeda ay labaduba ay iibsadeen siyaasadaha caymiska nolosha taasoo qayb ka ah qorshahooda howlgabka ayna lahaayeen qorshe markaasi ay ku dhimayaan deynta. si kastaba noqotay dhaqaale xumidan soo wajahday islaantani markaasi qoraaga ah ayaa waxaa lagu tilmaamayaa in ugu dambeyn buuggii ay qortay oo ah markaasi sida loo dilo saygaaga ay markaasi iyadu ay ficil u bedeshay oo ay ka dhabeysay. waxay sidoo kale sheegtay in cilmi baaristeeda ku saabsan qoryaha ruuxaanta ay u diyaarisay sheeko ku saabsan mustaqbalka. si kastaba qoriga ay soo iibsatay ayaa lagu tilmaamayaa in sanadii 2018 ay ku joogatay ninkeedii oo ay wada noolaayeen muddo aad u fog. ugu dambeyntii daawadayaal buugga la yiraahdo sidee loo dilaa saygaaga ee qortay boqoradda gabadhaasi la oranayay Nancy ayaa inta badan waxaa loogu naanaysi jiray boqoradda jacaylka maadaama waxyaabo badan oo dadka deegaanka wadanka Poland ay ugu barteen ay ahaayeen qormooyin iyo sheekooyin aad u xiiso badan. laakiin tamarka lagu soo laabto ama aynu eegno waxa ay noqonaysaa sheeko la qoray midii ugu horeysay oo ficil dhab ah loo muujiyo. inta badan sheekooyinka la qoro ayaa u badan kuwa jacaylka waana kuwa inta badan ay dadku ficil ahaan u muujiyaan. laakiin tan waa ay ka duwan tahay oo waa dil oo markaasi buug lagu qoray isla markaana iyadu ay qortay oo gacanteedii maqaalka ay ku qortay ayay ka dhabeysay. haddaba adiga sheekadaasi sidee ayay kuula muuqanaysaa? falcelintaadu waad noogu reebi kartaa
qaybta hoose ee markaasi commentiska mahadsanidin